Libaax badeedka, xayawaan halis ah oo laga baqo, xayawaan argagax geliya noole kasta oo ka ag dhow naftiisana uu uga yaabo. Xayawaankan miciyaha soofaysan ayaa ku nool hilibka uu soo ugaarsado, isagoon u aabba yeelayn nooca xayawaanka uu ugaarsanayo. Libaax badeedka ayaa leh qaabka kalluunka oo kale muuqaal ahaan, laakiin wuxuu kaga duwan yahay tanka, xoogga iyo bahalnimada. Libaax badeedka ayaa lagu tilmaamaa xayawaanka ugu argagax gelinta badan ee badweynta, xayawaan isku kunyo inuu yahay hogaamiyaha dhabta ah ee badda, xayawaan u babac dhiga weeraridda dooniyaha waaweyn isagoo hunguri kaga jiro inuu isku axamo dadka dul saaran. Libaax badeedka ayaa leh qal ama laf-gareed aad u weyn, taasoo qof bani'aadam ahi uu taagni ku dhex istaagi karo. Libaax badeedka ayaa leh sidoo kale ilko aad u waaweyn, kuwaasoo aad u xoog badan, ilko awood u leh inay burburiyaan isla markaana rigaaxaan lafaha noocyadooda kala duwan. Dadka badaha baara ayaa badheedh ugu babac dhiga halis ay mar walba ku waayi karaan naftooda halis weerar kaga yimaada bahalkan, taasoo ku talagalaan mar walba inay tahay isha baalkeeda. Libaax badeedka ayaa dhererkiisu gaadhaa 6 mitir, miisaankiisuna dhan yahay 1800 oo kiilogaraam ama tan ahaan ilaa 2 tan. Xayawaankan ayaa maalin kasta quuta ilaa 12 kiilogaraam oo cunno ah. Libaax badeedka ma lahan laf haba yaraatee oo jidhkiisu waa bilaa laf, wuxuu leeyahay oo keliya caadjaw. Xayawaankan ayaa ilkaha u isticmaala oo keliya inuu ku qabsado waxa uu ugaarsanayo, markuu qabsadana toos ayuu u liqaa, waxaas oo ilkaha kuma calaliyo.